Somaliland waxay leedahay natural resource khayraad dabiici ah dabeecadda dee Ilaahay baa sameeyey laakiin khayraad dihin oo aynu dhulkeena ku leenahay baa jira khayraadka aynu dhulkeena ku haysanno waxaan mowduucan ugu doortay buurta waxaan oran karaa oo anigu aan aaminsanahay in ay tahay shayga keliya ee samayn kara wax dhammaan waxyaalaha bini'aadamku u baahan yihiin dhulka dushiisa ku umale dhibaatada iyaga gaadhaana ay noqon karto dhibaato markaasi gaadhay dadkii deegaankaasi ku noolaa anigoo dhinacyo badan ka eegi doona marka waxaan ugu horeysa soo qaadanaya markaan buur aynu ka hadalno waxaa muhiima in marka ugu horeysa lasoo qaato bal horta qaabka ay u samaysmeen buuruhu weeyaan aragtida sayniska sida ka qabaan qanooyinkan geologiga iyo archaeologiga iyo qolooyinkaasi qayb ahaan way isku raacsannahay sayniskii qayb ahaanna iskuma raacsanin oo dhaqan ahaan way iska raacnaa oo inaga dhaqankeena waxa weeye kitaabka iyo sunnaha inay iska raaci karaan meelaha qaar waa laga yaabaa meelaha qaarna isku diidaan laakiinse applied physics marka la yiraahdo meelaha qaar waxay u muuqataa in la yardiida karo markaasi anigoo soo koobaya marka waxaan leeyahay buuraha Ilaahay ayaa sameeyey waxaana weeyaan shaygii labaad ee ugu horeeyay ee la sameeyo marka laga yimaado cadeeda iyo waxay yiraahdaan taariikh bay soo guuriyaan qolada saynisyahaniintu ay yiraahdaan 5 bilyan oo sano ka hor waa qiyaasun maaha wax facts oo Ilaahay baa yaqaan waqtiga uu abuuray Nabi Maxamed uu ku yiri ma joogin markii aan abuuray khalqiga laakiin qiyaas ahaan unbuu imika saynisku waxyaalahan imika aan idin sheegi doonaa waxa weeyaan aragtida sayniska sida ka qabaan qanooyinkan geologiga iyo archaeologiga iyo qolooyinkaasi waxaynu buuraha ka aaminsanahay buuruhu sax ka jiraan haddii la yiraahdo buuruhu waxa weeyaan qaab latitude ayay raacaan equator ka bilaabmaan ilaa boolka ilaa cirifyada ayay sidaas u taxan yihiin ha ahaadaan noocaas aynu niri volcaniga ama ha noqoto nooc aynu niri ball mountains oo noocyo 5 nooc oo kala ilaa 4 nooc oo kala caana oo kale ayaa loo sheegaa sidaas ayay macnaheedu ay u taxan yihiin buuruhuna sidoodaba inaga waxay noogu muuqataa inay taagan yihiin laakiin buuruhu way socdaan wayna cadeyn doonaa haddii la yiraahdo xagga hoose inuu sheegi doonaa waxana weeyaan masaabiirta loogu talagalay dhulka dushiisa Ilaahay ugu talagalay waana resource-ka kaliya ee bini'aadamku wixii ku noolaa lahaayeen oo dhan oo ka heli lahaa